بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أدبان السلام يا دمانتين سلامك بعدي waxaan doonayaa inaan caawa ka hadlo arrin ka duwan kuwa ka hadli jiray. Arrintan ka hadlaya waxa weeye nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Ubaxle oo reer UK ah warqad uu soo qoray. ninkaasi waxa uu soo qoray warqad aad muddo in xafiis ka soo baxday oo amar ku bixinayo. warqadda waxa uu ku bilaabayaa ku socota iyo ku socota waranaya qurbo joogta Soomaaliland buu oranaya hay'adaha amniga buu oranaya saxaafadda Soomaaliland يعني waa xafiis warqad xafiis ka soo baxday sida kuwa wasiiradu soo saaraan ama madaxweynuhu dib soo saaro kale xafiis ka soo baxday oo xafiiskaasina uu cid ku amrayo inta amarku maraabo hadana oranaya urur la baxay qurbo joog midnimada qurbo jooga Soomaaliland ayaan sheegay inuu yahay urur fayga oo been abuura. warqadan soo qornay anagu ururka iyaguna uu soo qaatay waa fayg buu leeyahay. garyaqaan ninkaas uu sheeganaya oo magaciisa caadiga wuxuu ka horreysay garyaqaan aan ku noqdo waxa uu ka hadlay oo aan dhex galo oo aan explain gareeyo ama aan sharxo. sideedaba marka la oranayo waxba fayga ama waa been abuur cidda waxa fayga sheegaysa been abuurka sheegaysa waa arrimahan qof ama koox magacyo aan lahayn oo shakhsigooda aan lahayn oo shakhsiyaad kale leeyin sheegatay waa la oran karaa waa been abuur. qof ama koox company magaciisa ku hadlay oo sheegtay waa la oran karaa waa been abuur. qof ama koox urur jiray magaciisa ku hadashay ama sheegatay iyagana waa been abuur. almuhiim been abuurku wuxuu noqonayaa cid wax ayagu aanay ahayn oo magac kale cid kale leeday ku hadashay ama sheegatay taasaa la oranayaa waa been abuur. cidda oranaysaana waa qof kastoo caadi wuxuu oran karaa waxaasi waa been abuur oo dee isagoo og in magacan qofkan ku hadlaya ama ciddan ku hadlaysa aanay lahayn oo soo xaqiijiyey ayuu oran karaa waa been abuur. isagu laakiin qof caadi uu ka doonaayo amar buu bixinayay amarku bixinayna xafiis buu ka soo baxay xafiis buu iska dhigay warqad ka soo baxday. markii aan dhex galay akhriskiisa aan qoraalkiisa akhriyayna wax xil oo uu hayo oo uu cid oo wax ku amrayo muu sheegan inuu wuxuu yiri waxaan ahaan jiray ururka hebel gudoomiyihiisii hore iyo in maamulihii TV-ga qaranka ee UK. marka ay sidaa tahay horta fiiga uu sheegay iyo been abuurku horta isaga fiig iyo been abuur waayo warqad xafiis ka soo baxday ay amar ku bixinaya ta koowaad Cabdiraxmaan isaga fayga waxaana fayg ku yahay warqadda uu qoray waa amar laamihii dawladdu amraya saxaafadii buu ogeysiinaya yani qurbo joogii buu amraya waa ninka aan ku noqdo been abuurkii aan ka hadlo annagu maanan af aan ka iyaga ahayn kumaanan hadal cid aan mas-uul ka ahayn ama qurbo joog ha noqoto ama qolqol joog ha noqoto may jirno marnaba may dhicin. qurbo jooga Soomaaliland ee qudbada jooga ayaanu matalaynaa horena uma naan imikana ma lihin meeshu ka keenay isaga la weydiin doonaa. magac baanu samaysanay urur baanu furan dad nool oo hebel iyo heblaaya loo yaqaan maanu nahay oo ma nihin dad fiiga meeshu fiiga ka keenay iyo wuxuu uga jeeday isaga la weydiin doonaa. ururkaanu furannay urur naga horreeyo magaca iyaga sita oo aan magacoodii koobi garaynay ama aanu fayg markaas inta fayg noqon laynay ma jirona haystaa. marka magacaan aanu ku samaysanay ee urur ahaan aanu samaysanay urur kale jiro oo magacaan lihi ayaa la oran karaa waa fayg ama waa been abuur. ma nihiino ururka magaciisa aanu samaysanay annagu baan la baxnay intayda isu timi baan la baxday. marka ma intayda isu timi baa fayg oo beena
ma marka ururka la samaysanaya isaga la soo maraayo isaga wuxuu isagu soo saxeexaabaa noqonaya urur oo isagaa ruqsadda bixiya su-aalahaasoo dhan cabdiraxmaan bay u yaallaan cabdiraxmaan garyaqaan buu sheeganayey gardaayo caqligii saliimka ahaa ean iskuulba gelin xitaa kuma jiro cabdiraxmaan su-aalaha cabdiraxmaan waxay u yaallaa ma ruqsadda ururkuu bixiyaa ma cid baana haysata ma urur kalean magaciisa sheeganay ma qof magacyo kaleanaan lahayn baanu sheeganay muxuu ku keenay taasi waa su-aal isaga la weydiinayo mid kale ayana taalla oo meesha leeg ingiriisku cabdiraxmaan joogaa ingiriiska waxaa lagaga dhawaaqay ururo badan oo somalilan lagu waxyeelaynayo dowladaa lagaga dhawaaqay madaxweyneyaal baa lagaga dhawaaqo martin iyo nin kale oo isla reer somalilan oo imika sheegta madaxweyne labaduba UK bay joogaan dowlad dibad wareegaa lagaga dhawaaqay shabhadaa lagaga dhawaaqay rasaasta iyo hubka ururinaya waxaa lagaga dhawaaqay ururo haddii alla kuu roon yahay wax lagu yeelayo somalilan lagaga soo jeeda qarannimadeeda waxaa lagaga dhawaaqay ururo lagu baabiinayo dalka oo lagu gelinayo dagaallo laisku dirayo dadka deganaya walaalo ah oo wiigii u dambeysay ka dhacay UK kuwaasoo weliba soo kaxaystay reer somalilan qura kuma ekaan soomaalidii kale soo kaxaystay weliba intii somalilan necbayd ee cadowga ku hayd intay soo kaxaysteen sharar qabsaday iyagoo haddana magacyo sheeganaya kale oo innaga inaga mid ah waxaasoo dhan baa UK ka dhacay cabdiraxmaan kamuu hadal oo may dhibin waxa loohaas waxaa dhibtay ururkayaga annaga waa bositive wanaagu ka shaqaynaya somalilan buu difaacaya waa dad mutadawiciina oo arrintoodii adduunkooda ku bixinaya ma nihin siyaasiyiin ma nihin qaar siyaasadda hunguri kaga jiro oo sidiisa maskab ku raadinaya somalilan ururkan uu duraya cabdiraxmaan waa urur u taagan inay naftooda iyo dhaqaalahoodaba ku bixiyaan iyo arrintooda iyo adduunkooda ku bixiyaan oo mutadawiciina oo ku tabarucaya wanaagga halka kuwa kale keyrkoodii xumaanta ay kaga jiraan iyo waxaa iftiinkana la weydiin doono aakharana ilaahay kula xisaabtami doono iftiinkana dhibta u geysan doona ee xumaantaa kuwa ka shaqaynaya kuwaa oppositekoodii baanu nahay oo bedelkoodii baanu nahay oo bositiva oo wanaag ka shaqaynaya cabdiraxmaan iyada su-aasha hortaalla waxa weeyaan waxaasoo dhan oo UK ka dhacay oo urura ah oo wada xumaan ka shaqaynaya waxa ay u dhibi weyda ka iyaga u dhibaa su-aal meesha taalla taasi waxay caddaynaysaa inuu cabdiraxmaan ka mid yahay kuwa xumaanta wada ee dhibaatada wada ee somalilan dhibka ku wada inuu kow ka yahay waxaa caddaynaysa warqaddiisaa uu qoray urur waxaa noqon karaa 4 qof baa noqon kara hebel iyo heblaaye ah annaguna 100 qof waanu dhaafnay urur baanuna jira qasnadayada waxaa noogu jira lacag guddi baanu leenahay 11 haddii alla kuu roon yahay hami fog baanu leenahay oo qof walba uu dana somalilan ku nool waxaa naga go'an qurbajoogga somalilan ee dhibaatada ku wada dalka ee jabhadaha sameynaya rasaasta iibinaya ee qurbaha jooga ee wadamada caalamka a jooga ee haddana dagaalka iyo nabadgelyo darrada ka wada dalkii inaanu ka wacyigelinno oo haddii wacyigelinta ay ku joogsan waayaan weliba dacweyno oo aanu daba qaadno waxay qorayaan iyo waxay ku hadlayaanna faylgarayno oo aanu kula xisaabtanno dalka gudihiisii iyo dalalka ay joogaan intaba annagoo daba qaadayna wixii ayagu ay ku hadleen ama ay qoreen ama ay iska duubeen ee maqal iyo muuqaal qoraal cod intaba leh cabdiraxmaan sidaan taariikhda ku hayo ama aan ku waraysi tegey waa nin qurbaha degganaa oo aan qurbaha waxba ka qabsan ama ka shaqaysan magacan garyaqaankee uu sheegayo waa la yaqaano waa garyaqaan macnaheedu waxa weeyaan de waa looyar de inuu ku shaqo tagaabaheed waddan baa u jooga qurbaahoo hadduu looyar yahay inuu kaga shaqo tagaabaheed muu yeeline waa dadka usoo foof tegay somalilan ee waxooda boobay ayuu kow ka yahay kuwii corruptionka ku cunayey UK ee lacagtaas loogu soo dirayey dowladdii hore loogu soo dirayey Hargeysa ee loogu soo dirayey halkaas ku cunayey lacagta telefishinka qaranka ee laga sheegi jiray meel walba ayuu kow ka ahaa ururadana uu leeyahay madax baan ka ahaa cuntuun buu ku raadinayey iyo hunguri annagu laakiin ma nihin kuwii ku raadinayey hunguriga ee maskabka iyo manfaca ku doonayey ilaahay shaqo waana siiyey taayadana ku kalsoonnay ilaahayna baray iyo mihnadda ilaahayna basiiyey
ayaan ku fooftagnaa nafteeda masaarifteeda ku raadsanaa xil baana naga saaran danta guud waxaanu nafteeda u soo shaqaysano inaanu wax uga gooyno somalilan oo aanu ku difaacno ayaa annaga naga go'an cabdiraxmaan qof kastoo somalilaani waxaa hortaalla su-aasha UK oo ka joogo oo ka soo hadlayo oo intaasoo ururo somalilan wax lagu yeelaya laga furay waxa uu uga hadli waaye ka iyagoonu waxba ka qaadi karin oo aanu waxba yeeli karin oo aan waxba laga weydiinahayn uu uga hadlay ururkayaga laa cabdiraxmaan laa cali laa mid kale dowlad mucaarid muxaafid mid wax ka qaadi kara amaan wax nagaga xidhayn amaan wax uga baahanna ma jirto inta ka midka ah ee membarka ah ayaa leh institution buu leeyahy sharci buu leeyahy nooc walba oo bulshadii waa ku jirtaa salaadiin baa ku jirtaa aqoon-yahanaa ku jira dumar baa ku jira culimaa ku jirta nooc kasta oo bulshadu leedahay waa ku jirta waxaa naga go'an inaanu u shaqayno dalka iyagoo musadawacnimo ugu shaqayno waxaa nagu jira dadka ku jira waxay kala taageersan yihiin saddexda xisbi qaranba institutionka noo yaalla ma aha mid ururka iyagu siyaasad ku daba leh ma aha jaranjar siyaasadda aanu ku fuulayno oo aanu hadhow ku samaysanno urur siyaasiya ama wax la mid ah intayada ku jirtaa ogaalkii qof qura oo hunguri siyaasadeed iminka ku jira naguma jiro mutadawiciin u taagan qarankooda inay difaacdo oo inta xunee qurbaha timi ee geelkiiska ah ee aan caqliga lahayn ee markay carruurtoodii bannaanka keeneen carruuraha kale ee nolosha la daala dhacayo doonaya inay ka gubaan nolosha iyo mustaqbalkooda baabiyaan ayaannu ka hortegaynaa oonu kaga hortegaynaa arrin iyo adduun labadaba waannu ka wacyigelinaynaa haddii ku joogsan waayaanna ficil baannu ka samaynaynaa cabdiraxmaan waxaan leeyahay aflagaada igama istahayshid oo anigu dadka ma caayo laakiin runtaan kuu sheegaya cabdiraxmaanow waxaad tahay qof xumaanta jecel oo u badheedhay waxay ka muuqataa ficilkaaga iyo warqaddaad qortay waxaad tahay qof aqoonta ka arradan oo magacuu sheeganayana aan shaqo ku lahayn garyaqaanka waxbaa u kala baxsan waxuu xaqu leeyahay iyo waxa aanu lahayn baa u kala baxsan garyaqaan taa iyo qof caadiya ma tihid because qofku waxa uu garanayaa ummadda waxa uu xaq ugu leeyey iyo waxaanu ugu lahayn ma kala garanaysid adigu waadna qabsatay oo fayg baad nagu sheegtay ma dadka nool ee ururka ka mid ah ayaa feegee hebel iyo hebel iyo hebel iyo heblaayo loo yaqaano ma magacaanu samaysanay baanaan u qalmin oo cid kale nagu haysataa sideenu feeg ku noqonnay su'aalahaasoo dhammi waa qaar aad ka jawaabi karin marar dambe ayaan ka hadli doonaa arrinta cabdiraxmaan laakiin imika intaa ayaan doonayaa inuu ka soo jawaabo waxaa ku kalifay because fayg waana soo macneeyey inta fayg lagu noqon karo ma dadkayaga nool ee ururka ka midka ee dhaqaalahooda ku bixinaya wakhtigooda gelinaya ama fayga oo reer somalilan ahayn ma iyagaan jirinba oo dad jira ahayn waa magacyo beena ma magacaan aanu samaysanay baa lanagu haystaa cid kale hore nagu haysatay oo adigu aad ka mid tahay bal sida fayg aanu ku noqonnay su-aasha adigaa lagaa raba iyo waxa xilligan kugu kalifay inaad wixii wanaagga wadayna ka soo horjeesato wixii xumaanta wadayna aad ka hadli weydo waxa kugu kalifana iyana waa su-aal meesha tale lagu weydiinayo reer somaliya o dhan kaaga baahan inaad ka jawaabto aad baan kuu salaamaya jawaabna waan kaa sugaya haddaad si ka jawaabi weydo anaa ku soo noqon doona mar dambe aad baan idin salaamaya dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu